maxaan ka naqaanaa masjidul aqsa xilligii la asaasay yaa asaasay taariikha oo soo maray masjidka baxay intee lag ayuu ku fadhiyaa masaajidkaas nooc ahaantiisa inaan baranno ayaanu doonayna insha allahu tacaala maxaa ka jiro sheegashada yahuudda ee sheeganayso iladan annaga oo iska laba oo la arkay baryahan dambe dad badan oo qaarkood soomaaliyiin xataa oo qirayso in yahuudda leedahay ama ku sumoobay sheegashadaas haddaba masaajidkan horta masaajid muhiim ah bismi illah alxamdu lilah والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan qaadi doonaa insha allah oon jeclaystay inaan bulshada soomaaliyed aan la wadaago taariikhda oo iska leeyahay almasjid alaqsa taariikhdaas oo taarikh muhiim ah baryahan dambena haddartaan aad u soo baxday dagaalka ka jiro ama gumeysiga yahuudda ku hayso masjid alaqsa masaajidka barakeysan ee ku yaala magaalada qudus caasimadda filistiin haddaba maxaan ka naqaanaa masjid alaqsa xilligii la asaasay yaa asaasay taariikha oo soo maray masjidka baxay intee lag ayuu ku fadhiyaa masaajidkaas nooc ahaantiisa inaan baranno ayaanu doonayna insha allahu tacaala maxaa ka jiro sheegashada yahuudda ee sheeganayso iladan annaga oo iska laba oo la arkay baryahan dambe dad badan oo qaarkood soomaaliyiin xataa oo qirayso in yahuudda leedahay ama ku sumoobay sheegashadaas haddaba masaajidkan horta masaajid muhiim ah waa masaajid muhiim u ah muslimiinta waa masaajidka saddexaad iska leedaha muslimiintu leeyihiin oo saddex masaajid ugu fadliga badan ee caalam islaami masaajidka koowaad waa almasjid alxaraam masaajidka labaad masaajidka nabiga alayh salaatu wasalaam masaajidka saddexaadna waa isaga waxaa caddeynaa xadiidkii nabiga nuri alayh salaatu wasalaam safarkan looma raran karo oo masaajid loo safar kara ma jiro ilaa saddexda masaajid ma ahane almasjid alxaraam iyo masaajidka aan ka naha masjid الnabiy sal ly slam iyo almasjid alaqsa haddaba masjid alaqsa muhiimadda koo leeyahay waxay tahay waa halkii loo dheelmiyey nabigina alayh salaatu wasalaam masaajidkaas qiimaha u leeyahay waxaa ku tusinayo waa halkii loo dheelmiyey nabigina sal allahu alay wasalam oo ilaahay ku sheegay bilowga suurat lisraa oo yihi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa loo dheelmiyey oo magaciisa qur'aan karimka lagu sheegay haddaba masaajidkan waa masjidkii fogaa la yihahda almasjid alaqsa masaajidkii fogaa fogaanta alaqsa waa fogaan wuxuu ka fog yahay masjid alxaraam uu ka fog yahay sidaas ayaa loo bixiyay magacaas alaqsa loo yiri sidoo kale masaajidkan muhiimadda uu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah waa uulul qiblatayn labada qiblo waa qibladii koobaad inta nabigeena loo jeedin calayh salaatu wasalaam qibladiis aan laga dhigin kacbada wuxuu u tukan jiray masjid alaqsa u fiirso qiimaha uu leeyahay ilaa 16 bilood 17 bilood oo kale ayuu nabigeena u tukanaya calayh salaatu wasalaam almasjid alaqsa u tukanaya allahu akbar kadib ayaa la amray inuu u jeedsado kacbada nabigeena aad ilaa ugu baryi jiray sal allahu alayh wasalam haddaba masaajidkan wuxuu iska leeyahay taariikho wuxuu leeyahay kumanaan sano fi aalaafi siniin taariikh wuxuu iska leeyahay kumanaan sano masaajidka yaa dhisa marka halkaas taariikhyana aad isu khilaafaan hase hatee warka ugu weyn waxa uu yahay in masjidkan la dhisay qabla almiilaad miilaadada ka hor biakthara min 2000 sana wax ka badan 2000 oo sano taariikhda maanta maraysa 2023 miilaadiyada ah ka hor 2000 oo sano kasii hor ayaa masjidkan la dhisay ayaa la yihahdaa waana masaajidka labaad ee dhulka lagu dhisay masaajidka labaad ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام masaajidka koobaad ee la dhiso waxa uu ahaa almasjid alxaraam masaajidka labaadna waa isaga xadiidkan uu warinaya imaam bukhaari soo saaray laga wariy can abi dar alghifaari radi allahu canhu waxa uu yidhi qultu yaa rasuula allah ayu masjidin wadica fi lardi awal rasuulka ilaahiyow masaajidkay ugu horeeyey ee dhulka lagu dhiso masaajidka ugu horreeyey dhulka lagu dhiso koo ahaa ayaa nabigu weydiye wuri alayh salaatu wasalaam waxaa nabigu u yidhi almasjid alxaraam waa masjidka xurmada leh ee kacbada ku yaala almasjid alxaraam waxaan ku dhaho yidhi uma ay yaa ku xigo masaajidkii ku xigay waxaanu yidhi alayh salaatu wasalaam almasjid alaqsa ayaa ku xigay masaajidka labaad ah u fiirso masaajidka qiimaha iska leeyahay markaas waxaan loo yidhi kam kaana baynahumaa labadood imisa u dhexaysa maasha allah waa taariikh aad ugu baahanah labada masjid ee almasjid alxaraam iyo masjid alaqsa imisa u dhexaysay imisa sano ayaa u dhexaysay waxaa nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam 40 sana 40 sano markii la dhisay masjid alxaraam iyo masjid alaqsa dhismihiisa waxaa u dhexaysay buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam 40 sano halkii salaada kuga haleesho ku tuko buu yidhi markaas walardu laka masjid masaajidka dhulka masaajid ku yahay
waxaana ka mid tahay weliba khasaa'ista nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam oo yidhi dhulka waxaa laga yeelay masaajid oo halkii salaad igu haleesho ayaan ku tukanayaa. taas waxaan ogaanay masaajidka xilliga la dhisaan ogaanay. yaa dhisay masjidkan marka sidoo kale waa lasu khilaafaa hase haatee warka ugu weyn waxa uu yahay in nebi aadam uu dhisay calayhi salaam. in nabiya aadam abulbashar nebi aadam abulbashar ah inuu dhisay masaajidka la sheegaa. kuwa waxay yidhahdaan saab bin nuux baa dhisay, kuwa kale cid kale sheegaan. hase haatee haddiiba 40 sano u dhexeeyey masjid alxaraam iyo masjid alaqsa gacbadana aan ognahay nebi aadam inuu wax ka dhisay calayhi salaam, waxaa nebi aadam ayaa ka qabsanaynaa. xaggee yahuud joogta markaas marka yahuudda xaggee joogtaba shaqa kuma lahan. haye waa war kale oo raajaxsan waa inkastoo kadib marka dhismo cusub dhismo fara badan waa soo maray masaajidka oo nebi aadam dhisay calayhi salaam kadibna waa soo maray taariikho badan. mar walba muslimiinta dowlad ay hogaaminaysay ama dad ay hogaaminayeen masaajidka waa lasii bedelay waa lasii dhisayey wuxuu sii lahaanaya tacmiirkiisa iyo binihiisa uu sii ziyaadayey. oo waxaa kaloo dhisay xilligii uu joogay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuu dhisay isaguna 2,000 sano milaadiya ka hor. kadibna waxaa sii dhisay nebi isxaaq iyo nebi yacquub calayhim assalaam gadaashiisa. sidoo kale nabiyullaahi daawuud calayhi salaam wuxuu u dardaarmay wiilkiisa nebi suleymaan dhis buu yidhi isaguna nebi suleymaanna wuu dhisay calayhi salaam masaajidkan 1,000 sano milaadiya ka hor. allahu akbar.